السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال صاحبيال halkani oo kulmiye private waxaan ahay Umar Maxamed Ali. Hadaba casharkeeni waxuu nooga bilaabeen doonaa content array oo luqad Ingiriiska ah. Halkan ay ku baran doontaa 50 words in English. Kaasoo casharkeena aan mar walba ku soo qaadano. Maanta waxaan ku soo qaadan doonaa content array oo luqadani ah. fadlan waxaynu hore u haysanay 700 oo array. maanta insha Allah hadii content aan ku darno waa 750 ayayna noqon doontaa. 700 array ayaanu haysanay. hadda mar content kan ayaan ku darinaa waa 750 array ayaanu halka aan ku soo gudbinay. hadaba intaan u gudagelin muuqaalkani fadlan halkan ila daabo hal mar. waxaa la marayaa sanadka 2025 walina maadan baran luqadda Ingiriiska. hadaba hadii aynu nahay bahda kulmiye private school waxaanu bixinaynaa course English oo lagu qaadan doono dhammaan heerarka luqadda Ingiriiska sida level 1 oo ah heerka koowaad. waxaanad ku baran doontaa heerkani book 1 English, book 2 English, basic vocabularies book, level 2 oo aan kugu diyaarinay buugaagta kala ah intermediate English book, revising English book, intermediate vocabulary book, level 3 oo ah heerka saddexaad oo aad ku qaadan doonto buugaagta kala ah basic English grammar, topic English book, phrasal verbs English book. hadaba hadii aad doonayso sanadkan aad luqadda Ingiriiska aad barato waliba hab online ah adigoo gurigaaga jooga buugaagtani waxaan kugu soo diraynaa WhatsApp-kaaga. casharadana waxaad ku qaadan doontaa group Telegram. hadaba hadii aad diyaar u tahay inaad luqadda Ingiriiska barato sanadka 2025 inta lagu guda jiro waxaanu ku diyaarinay course-kan ka kooban 3 heer ee luqadda Ingiriiska. buugaagta aan ku diyaarinayna waxaad ku helaysaa oo kugu soo diri doonaa WhatsApp-kaaga adigoo ku helayo casharada buugaagtanina Telegram-ka. hadaba hadii aad doonayso inaad sanadkan iska dhisto luqadda Ingiriiska fadlan hamoogan kulmiye private school oo bixinayo course-kani luqadda Ingiriiska waliba hab free adigoo ku heli doona. soo booqo numberka shashada kaaga muuqda. hadaba no more. waxaan rajaynayaa in aad fahantay oo aad nagu soo biiri doonto insha Allah luqadda Ingiriiska course-kaas aan ku diyaarinay mar walba. 50 words in English waxa loo yaqaan waa content array oo luqadda Ingiriiska ah. halkaas ayaa markaasi aan ka bilaabaynaa. okay ereyga koowaad aan soo qabto qof walbana ha isku dayo inuu hal jumlad uu soo dhiso isagoo ka soo dhaxbasanayo erayadan. ereyga koowaad waxa weeyaan waa Paul. waa maxay Paul? waxa loo yaqaanaa waa soo jiidid, inaad wax soo jiido. okay Paul waa soo jiidid. okay inaad soo jiido shay ayaa loo yaqaanaa Paul. loogu dhawaaqaa Paul. okay ereyga labaad waa pupil. dada jira waxay yiraahdaan pupil iyo dada yiraahdo pupil iyo waxyaabahaas ma waakiin waxa weeyaan dhawaaqeeda waa pupil oo ah arday. pupil waxa loo yaqaanaa arday. waliba pupil waxa loo yaqaanaa ardayga markuu dugsiga hoose iyo meelahaas uu ku jiro dugsiga dhexe iyo uu ku jiro loo yaqaanaa ninkani waa this is a pupil. okay waa arday kan ardaygaas marka laakiin hadii ka gudbo student loo yaqaanaa ardayda marka hadii heerka dugsiga sare iyo wixii ka sareeya student waka. okay ereyga saddexaad waa purpose. waa maxay? waa ujeedo. purpose waa ujeedo. ereyga afraad waa push. waxa loo yaqaanaa waa riixid, inaad wax riixdo. okay push waa maxay? waa riixid. kii hore wuxuu ahaa soo jiidid, kan waa riixid, inaad shayga aad riixdo hoos u riix. push loo yaqaanaa marka push down oo ah hoos u riix. marka shayga hoos aad u riixayso waxa loo yaqaanaa waa push, waa riixitaan. ereyga shanaad waa boot. waa maxay? boot waa dhigid, inaad wax dhigto. okay boot waa dhigid, shayga inaad dhigto. I put my shoes on the cupboard. anigu waxaan dhigay kabahayga armaajada korkeed baan saaray oo dhigay. marka boot waxa loo yaqaanaa waa dhigis. ereyga lixaad waa quality. waa maxay? waa tayo. quality waa tayo. okay quality waa tayo. ereyga toddobaad waa quantity oo ah waa tiro. quantity waa tiro. marka labadan erey yaanan isugu qaldin. marka waxa leedahay quality waa tayo, quantity waa tiro. ereyga saddeedaad waa question oo ah su'aal. question waxa loo yaqaanaa waa su'aal. ereyga sagaalaad waa quick. waa maxay? quick waa degdeg ama dhaqsi. quick waa degdeg ama dhaqsi. come quickly, si dhaqsi ah u imaw. sidaas oo kale jumlad u soo geli adiguna ereyga. ereyga tobnaadna waa quite.
quiet waa maxay waa aamustaan okay aamusitaan quiet waa aamusitaan oo qofkii inuu mar walba silence uu ku jiraado oo iska aamusnaado quiet loo yaqaana oo ah aamusitaan ereyga 12aadna waa quieted waa maxay quieted waa aamusay quieted aamusay okay aamusay okay ereyga hadda 10aad oo kale quiet oo kale sidoo kale waxa dhigi kartaa deganaan way noqonaysaa hadana isma diido quiet waxa dhigi kartaa deganaan quietedna waxa dhigi kartaa okay aamusay ereyga 12aad waa maxay waa quotation waxa waaye waa xigasho quotation waa maxay waa xigasho ama maragasho okay maragasho laakiin waxa loo yaqaanaa xigasho shayga inaad adigu dad ka soo xigato quotation loo yaqaanaa waa xigasho ereyga 13aad waa maxay reader alada kan okay reader waa maxay waa raadarka okay reader waa raadar anagu waxa u naqaanaa raadarka marka aad meel ka gudbayso oo kale meel webi oo lake oo kale aad ka gudbayso taasna raadar waa u naqaanaa marka waxyaabo fara badan raadar loogu macnayn kara iyaduna reader waa maxay waa raadar ereyga 14aadna waa radio waa raadiyaha la dhageysto weeyaan ereyga 15aadna waa rain waa maxay waa roobka ereyga 16aad waa raise waa maxay waa kor u qaad raise oo ah kor u qaadis in shay kor loo qaado okay raise your hands gacmaha kor u qaad saas oo kale okay waxa kamid ah ereyga 17aad waa maxay waa range waa kala duwan ama taxan waxa loo yaqaanaa kala duwan ama taxan range waa kala duwan ama taxan ereyga 18aad waa maxay rabbit waa maxay waa dhaqso rabbit waa dhaqsi leh oo dhaqso ah ereyga 19aad waa maxay rate oo ah sicir waa sicirka rate-ka in wax lagu soo diro adigu aad ogaato sarifka inta uu maray rate waa maxay waa sicirka meesha uu marayo aad ka ogaanaysaa sicirka lacaga meesha uu marayo ka ogaanaysaa ereyga 20aad reach waa maxay waa gaaris waa gaarid in meel la gaaro okay 21aad reaction waa falcelin ereyga 22aad waxa weeyaan waa read okay waa aqrin in wax la aqriyo akhriska ereyga 23aad ready waa maxay waa diyaar ereyga 24aad real oo ah dhab ah real waa dhab ereyga 25aadna waa reason waa maxay waa sabab okay ereyga 26aad waa receive waa helid ama soo gaarid labaduba waa dhihi kartaa receive waa maxay waa helid ama soo gaaridna waa dhihi kartaa ereyga 27aad waa maxay waa recent waa ah cusub okay sidoo kale waxa dhihi kartaa recent hadda waqti xaadirka la taagan yahay recent time oo ah waqtiga hadda la taagan yahay marka waa recent cusub ama hadda ereyga 28aad waa maxay reception waa soo dhaweyn ereyga 29aad record waa maxay waa duubid I am recording a lesson aniga 10 baan duubaya marka record waa maxay waa duubid ereyga 30aad waa maxay isagana red waa maxay waa guduud okay kalarka guduudka ah loo yaqaana red waa kalarka guduudan ereyga 31aad reduce waa maxay yareyn okay reduce waa maxay ama hoos u dhig ama yareyn hoos u dhigitaan ama yareyn ereyga 32aad waa maxay river waa u tilmaamid waa u tilmaamid ereyga 33aad waa reverse waa dib u celin in dib loo dhigo shayga okay dib u dhigid ama dib u celin reverse waxa loo yaqaanaa waa dib u dhigid ama dib u celin
okay ereyga soddon iyo markaasi afraad waxaa ku jira refuse oo ah refuse waxaa loo yaqaanaa waa diidid inaad wax diido I refused that aniga midaas waan diiday marka refuse waxaa loo yaqaanaa waa diiditaan ereyga soddon iyo shanaadna regular waxaa dhihi kartaa regular waa maxay waa nidaamsan regular nidaamsan ereyga soddon iyo lixaad waa maxay relate waa la xiriira la xiriira okay ereyga soddon iyo toddobaad relax waa maxay waa nasasho waa nasasho okay ereyga soddon iyo siddeedaad waa maxay remain waa maxay remain waa haraaya okay haraaya remain wax walba oo haraaya loo yaqaan remain haraaya ereyga soddon iyo sagaalaadna remember waa xusuus waa xusuus ereyga afartanaadna remittance okay remittance waxaa loo yaqaanaa waa xawaalad remittance waa xawaalad ereyga afartan iyo koowaad remove waa saarid in meesha laga tiro shay laga saaro remove waa tirid ama saarid ka saarid ereyga afartan iyo labaadna rent waa kiro pay the rent war kirada bixi okay marka waa rent waxaa loo yaqaanaa waa kiro ereyga afartan iyo saddexaad waa replace oo ah bedelid bedelid ereyga afartan iyo afraad reply war celin ereyga afartan iyo shanaad report waa maxay waa report qofka ka diyaarisa loo yaqaan report waa report un ereyga afartan iyo lixaad represent waa u taagan shay u taagan okay represent waxaa loo yaqaanaa waa u taagan ereyga afartan iyo toddobaad waa maxay require waa u baahnaansho require u baahan ereyga afartan iyo markaasi siddeedaad waa research waa maxay waa cilmi baaris ama baaritaan research waa baaritaan ereyga afartan iyo sagaalaad resource oo ah resource waa khayraad ereyga kontonaadna waa respect oo ah xushmad waa maxay waa xushmad halkaasan idinku soo afmeeray saaxiibayaal maanta aanan ku dheeran sharaxaada ama aanan wax in badan oo jumladaha kamid ah aanan jumlad ku soo dirin oo erayadan aan jumlad aan ku darin ani ahaan marka idinkaga filaya commentiga inaad ka qayb qaadataan adinkuna maadaama casharka la idin soo gudbiyay casharka aad haysato fadlan markaad barato adiguna hal eray ku soo qor halkaasi commentiga si aan u ogaano in jumladaada ay ku jirto eray kamid ah erayada haddaan soo gudbiyay kontonka eray fadlan meel ila gaarsii saaxiibadaada u sii shargalay gruubyo fara badan oo dad ku jiraan si gaarsii adiga markaas waxay kugu tahay inaad dadka u sii shargalayso aad la wadaagto wax walba oo aqoonta kamid ah fadlan halkaas nagu dhiirigeli inaad commenti aad markaas aad ka bixiso inaad markaas aad like saarto inaad subscribe aad saarto nagu soo birto inta waa noo muhiim waad ku mahadsantihiin saaxiibayaal ramadaan wanaagsan